mayba geeka hadeeray magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan wasiirka macdanta iyo tamarta dawlad goboleedka Hirshabelle mudane Axmed Muuse Xuseen ugu horeantii mayba ku dooway gudoomiye higeenka gobolka Hiiraan mudane Cabdirashiid Ali oo ka dhawaayay magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan xarunta magaalada soo gaaray beledweyne wasiirka tamarta iyo biyaha mudane Axmed Xuseen biixi على الوزير كشوف يوم قبل كيران قبل كاي حبذا واسكو قاعد أنت على ذاك الجرو وأنا مقالة أكو ونحسن فيها تو وأكو عجبت أنت أنا أولو welcome sidoo kale wasiirka wasaaradda biyaha macdanta iyo tamarta dawlad goboleedka Hirshabelle oo goobta ku doobay yaa mayba dooshay ku mid tahay intii walku ogaadaan xaaladda biyo yar ee ku teegan magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan gobolkii oo la shaqaynay insha Allah waxaan dhibaatooyin badan oo xagga biyaha ay ka jiray gobolka Hiiraan waxyaabo badan oo soo gaaray cabashada awgeed in la sidoo xogaa lagu noqonaha hawlaha awgeed ayaa loo nimid meeshan insha Allah harjinayna inoo qabsan doonaan insha Allah hawlaha shaqana la bariyo guddiga ee dhammaan tabaxiyasha caalamiga maamul goboleedka Hirshabelle dowladda federaalka dhammaantii waxaan leeyahay waxa dhibaato badan ka jirta gobolka Hiiraan oo biyo la'aaneeda iyo xagga caafimaad labadaba waxaan ka codsanaynaa dhammaantii wax la soo gaadhaan kooyoga wasiirka wasaaradda biyaha macdanta iyo tamarta yaa mayba ka beega maase xili guud ahaan gobolka Hiiraan ku teeganta biyo yari Cabdinaasir Jaag Ali telefishinka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed